wadaagidda nolosha iyo jacaylku kuma xinada sidaa awgeed waxaad arkaysaa lamaane ay da-dooda u dhaxayso farqi kala duwan waxaan idinla wadaagayaa 10 lamaane ee nolosha midoobay uguna saameynta badan intii aan bilaabin waxaan idinka codsanayaa inaad page-kayga follow noo saartaan like noo saarto mahadsanidin axmed maxamed dhoore iyo safiya cabdulaahi waa lamaane soomaaliyeed oo nolosha midoobay axmed wuxuu ku guursaday safiya isagoo jira da-da 112 halka safiyana ay jirtay 17 jir da-dooda waxaa u dhaxaysa farqi aada u kala duwan oo caqliga aan geli karin sidoo kale ku darso axmed wiilkiisa qurad ama wiilkiisa ugu weyn waxa uu jiray da-da 80ka markay nolosha wadaageen isaga iyo safiya Anton Criftis waxa uu dhashay dalka China wuxuuna nolosha la wadaagay lamaane ay kala duwanaansho u dhaxeeyo da-deeda iyo dhererkeedaba Anton Criftis xaaskiisu waxay ka dheer tahay 3.5 feet Sean Stephenson iyo Min Dennis Sean waxaa ku dhacay xanuun loo yaqaano osteogenesis oo saameyn ku yeesha lafaha isla markaana qofka ka dhigay inuu noqdo qof gaaban ama inay lafihiisa isku noqdaan Min waxay ka dheer tahay Sean 2 feet and 8 inch waxayna kulmeen 2009kii iyagoo markii dambe noqday lamaane nolosha ku midoobay Gabriela and Victor Peralta waa lamaane u dhashay dalka Argentina lamaanahan ayaa noqday lamaanaha jidhkooda ku sawiran yahay farshaxan fara badan waxaana ku sawiran jidhkooda in ka badan 70 tattoo iyagoo bilaabay farshaxankan ama tattoogan xilligii carruurnimada ay aadka u yaryaraayeen Paulo Gabriela iyo Katja waxay noqdeen lamaanihii ugu gaabnaa ee abid isguursaday wuxuuna dhererkoodu gaadhaya marka la isu geeyay 1 mitir iyo badh waxayna isguursadeen 2016kii Paulo dhererkiisu wuxuu ahaa 54 halka xaaskiisa quruxleyda ahayd 88 inches Anna iyo Lucy waa laba hablood oo walaalaha waxaad aragtay gabdhaha walaalaha oo wadaaga make-upka iyo qalabka la isku qurxiyo laakiin wali ma aragtay gabdho walaalaha oo wadaagay hal nin Anna iyo Lucy waa laba hablood oo mataana oo u dhashay dalka Australia waxay wadaagaan wax kasta sida dharka cuntada labiska sidoo kale xitaa waxay ku seexdaan hal sariira wax kastana waa iska dooq laakiin sheekada qosol kale waxa weeye waxay nolosha la wadaageen nin makaaniga oo la dhaho Ben sanadkii 2012kii waxaase la yaab leh gabdhahan walaalaha xitaa ma kala masayraan midna midka kale ma dhaawaco xitaa xilliga gogosha waa isku waqti Sharon Tender sanadkii 2006 Sharon waxay noqotay gabadhii ugu horeysay adduunka ee guursata xayawaan badda ku jira oo loo yaqaano hambaro haddaba waxaa su'aala sidee bay ku kulmeen Sharon iyo xayawaankan Sharon waxay u dhalatay waddanka UK waxayna u safartay waddanka Israa'iil iyadoo u aaday hawlo ganacsi darteed iyadoo ku jirtay booqashadeedii ayaa waxa ay booqasho ku tagtay meelaha lagu xanaaneeyo xayawaankan loo yaqaano hambarada wayna jeclaatay wayna guursatay laakiin waxaa su'aala xayawaankani ma leh wax dareema lama hadlayo talow sidee bay isku fahmi doonaan Elmira iyo Herbert waxay noqdeen taariikhda lamaanihii ugu da'da weynaa ee adduunka ee nolosha midoobay waxayna nolosha wadaageen iyagoo ah da'doodu 87 jir waxayna isguursaneen sanadii 2008 oo haddaba jacaylku kuma xinada
marka ay timaado xidhiidh jacayl oo xoog badan oo u dhexeeya lamaane waxay ku gaadheen xidhiidhkaas xooga badan xushmayn, taageerid, daacadnimo iyo inuu midba midka kale la socdo dareemihiisa. Graham B iyo xaaskiisa Dixie Yow. Graham B ama sida ay Soomaalidu u taqaano Alfanaan Dolly waa fanaan u dhashay dalka Guinea waxa uuna ka soo jeedaa sidoo kale qoys taajiriin ah oo aad looga yaqaan dalka Guinea lana dhaho Musa Sidina Kaba waana taajir fanaaniinta ugu taajirsan dalka Guinea. yaraantiisu waxa uu ku dhashay haddaba xanuun saameyn ku yeeshay lafihiisa waxa uuna nolosha la wadaagay gabadh model ah oo la dhaho Dixie Yow. haddaba saaxiibka Graham B riyadiisu waa riyo aad u weyn sida ay u weyn tahay xaaskiisu waana musharaxa madaxweyne ee dalka Guinea waqti xaadirkan. Helen Shibangu iyo Sinali waa lamaane ay da'doodu u kala dhaxayso farqi aad u weyn. gabadhu waxay jirtaa 61 jir halka uu wiilku jiro 8 sano. Helen waxay guursatay wiil 8 jira. wiilka reerkoodu way aqbaleen waxayna bixisay lacagta yaradka oo u dhiganta 1500 pound. haddaba sheekada la yaab kale waxa weeye markii meher ku dhacayay wiilku wuxuu watay dharkii dugsiga hoose. haddaba haddaad ka heshay videogan waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu dhiirigelisid inaad page-ka follow noo saartid sidoo kalena aad like noo saartid aad faallana ka bixisid videogan. waxaan ku leeyahay naga daalinay nala socda waxaan idin soo wadnaa video fara badan insha Allah.